waxay ahayd qaaradda Yurub iyo Mareykanka todobadii qofba hal qof oo kamid ah waxa uu geeriyoon jiray cudurka loo yaqaan qaaxada waxayna ahayd cudur halis ah muuqaalkan maanta waxaan isla eegi doonaa sidii ay ardaydu wax u baran jireen xilligaasi maadaama cudurka qaaxadu lagu kala qaadi jiray hawada ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad daawato muuqaalkan ha ilaabin daawade inaad subscribe saartid channelkan sidoo kalena aad like saartid mahadsanid haddaba aan guda galno muuqaalkeena maanta markii uu cudurkan saameeyay dad badan waxaa bilowday nidaamka ah in ardaydu banaanka wax lagu baro sababtoo ah waxay u arkayeen in ay tahay xalka ugu wanaagsan ee ardaydu waxbarashadooda u sii wadan karaan waxayna ahaayeen kuwa aaminsan in aqoontu ay tahay dawada faqriga iyo jahliga waana midan tan ay ku guuleysteen maanta fikradda ah in ardaydu banaanka wax loogu dhigo waxay bilaabatay sanadii 1904 waxaana bilaabay fikraddan laba wadan oo kala ah wadanka Jarmalka iyo Belgium waxaana kuraasta la dhigi jiray goob banaan ah macallimiinta ayaa qaabkaas wax ku bari jiray ardayda cabsi laga qabo cudurka qaaxada awgeed waxaana markii dambe la furay iskuulo ardaydu banaanka wax loogu dhigo Mareykanka nidaamka ardayda banaanka loogu dhigo waxay bilowday sanadii 1907 qaaxada ayaa ka daran cudurka maanta caalamka ka jira waana cudur ay gudbiso dabaysha waxayna ku dhici jirtay qofka ay gasho bakteeriyada ka dhalata qaaxada muddo saacado ah marka laga soo tago xanuunka ka dhasha nafaqadarrada qaaxada ayaa ahayd dhibaatada ugu weyn ee haysata caruurta xilligaas fikradda ah in ardaydu banaanka wax loogu dhigo waxay bilaabatay intii u dhaxaysay labadii dagaal ee adduunka professor lagu magacaabo Dalben wuxuu helay diiwaano dhowr ah oo ku saabsan iskuulada ardaydu banaanka wax loogu dhigi jiray mid kamid ah iskuuladaasi waxaa la oran jiray Escolade geed hoostiisa ayaa ardaydu xilligaasi wax loogu dhigi jiray magaalada São Paulo ee Brazil markii dambe waxaa loo raray dhismo ku yaala halkaas inta badan iskuuladaas kuma badnayn ardayda ka soo jeeda qoyska dabaqada dhexe waxaana wax ka dhigan jiray 350 arday waxaana jirtay arday badan oo sugaysa in la aqbalo sanadii 1921 ayaa cudurka qaaxada loo helay daawo waxaana la helay ardaydii wax ka soo baratay iskuulkaas oo haatan gaaray da'da 8aad waxayna sheegeen in macallimiinta ay ahaayeen dad waxbarashada ku adag iskuulada ardaydu banaanka wax ugu dhigi jiray waxa ay meesha ka baxeen sanadihii 60meeyadii daraasado ayaa muujinayso in fiditaanka cudurkan lagu yareyn karo nidaamka ah in ardaydu banaanka wax loogu dhigo balse cilmi baarayaashu waxay rumaysan yihiin in fikradda ah in ardaydu banaanka wax loogu dhigo dib loo soo celiyo haatan nidaamka ardaydu banaanka wax loogu dhigo waxa laga dhaqangeliyay gobolka Kashmir ee qaybta Hindiya maamusho halkaas oo ardaydu ay ku bartaan agagaarka buuraha qabowga badan ee Himalaya Finland waxa caan ka ah ardaydu wax loogu dhigo banaanka ama kaymaha gudahooda Denmark waxa ka jirta maalin lagu magacaabo Adiskol oo micnaheedu yahay dugsiga banaanka iskuulo badan ayaa si joogto ah u dhaqangeliya arintan dalka Denmark wuxuu ku baaqayaa in qaabkan ardaydu wax loogu baro si loogu hortago cudurka maanta caalamka ka jira halkani ayuu ku eg yahay muuqaalkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh